qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta banaanbax balaaran ka sameeyay kumanaan qof oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajta kuwaas oo ka cabanayay dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan xilliyada ay ku jiraan howl maalmeedkooda magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Ijneeriso ayaa isgooska Taleexay degmada Hodan kula kulmay kumanaan ka mid ah dadka banaanbax sameynayay ee ku shaqeysta mooto bajaajta isagoo kala hadlay cabashooyinka ay qabaan iyo sida ay wax u doonayaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa cod dheer ugu sheegay wadayaasha gaadiidka bajaajta in wax laga qaban doono cabashooyinka ay qabaan isagoo tilmaamay in marnaba uu maamulka gobolka Banaadir aqbali doonin dhibaato loo geysta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxa uu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho sheegay in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigi doono gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay dilalkii loo geystay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka ee bajaajta loo yaqaan. kulanka uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho la qaatay banaanbaxyaasha maanta ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed. dhalinyaro maanta falkii dhacay waa mid aan loo dul qaadan karin ma la aqbali karo cid alaal cidii geysatan waxay idin ballan qaadaynaa in hay'adaha sharciga la horgeyn doono. ma annaga dhalinyaradiina bajaajka wada waxaan u aragnaa inay magaaladan dadkii camiray dadkii dhaqaalaha kobciyey dadkii shaqo abuurka abuuray dawladda inay shaqadeedii abuurtay ahayd idinkaa abuurtay. dhalinyaro waa ognahay doorkiina iyo muhiimaddiina. madaxweynahana tan iyo saakay arrintaanu aad uga walwalaayey 10 jeerunu soo wacay. marka waxaa idiin sheegayna madaxdiinna qarankana runtii aadayda kaga walwale annagana waa idiin walwalaynaa si nidaam iyo kala dambayn iyo dawladnimo u jirto idinkana aa u shaqaysataan. waxaan rabnaa inaan wax isla fahamno. kow ciddii wax dhib idiin geysatay weliba ninkii maanta wuxuu ahaa nin munishiibiyada ka tirsan oo dawladda hoose ah. waxaan idiin ballan qaadaynaa in qofkaas sharcigana la hor keeni doono idinkana meesha lagu xukumayo aad joogi doontaan. waxaan rabnaa inay tusaale u noqoto inaan cid dambe oo saas inuu dhib idiin geysan karin. idinkana midaan idinka rabnaa dawladnimo iyo nidaam waxay ku jirtaa kala dambayn iyo nidaamkoo la ilaaliyo. haddii nin ciidana ama munishiibii ku istaajiyo ma iska bixisay ku dhaho canshuurtii waxaan rabaa si fiican inaa ula dhaqantaan. annagana waa kana taliyaha ciidankao dhan waa amran yihiin in sida ugu fiican ugu akhlaaqda fiican idinkula dhaqmi karo idinkula dhaqmaan. marka waxaan rabnaa waxaan dalkeenni waay annagaa iska leh waxaan rabnaa si nidaam ahoo nabad ah hawshiinna inaad ku qabsataan. annagana idiin ballan qaadno cid kastoo dhib idinku haysta inaan idinka celinno. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.